miyaha xisbiga wicida Somaliland mudane Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in warwar weyn laga qabo in Somaliland ay sii jiri doonto 6 bilood ee soo socda sabab la xiriira xaaladda adag ee waqtigan uu dalku marayo una baahan in si dhaqso ah looga saaro sida uu hadalka u dhigay. Gudoomiyaha wicid waxa uu sheegay in 80% ay socdeen bulshada gobolada bariga iyo galbeedka Somaliland iyaguna ay sii socdaan sida uu hadalka u dhigay. waxaanu xusay inay qaldanayd asaaskii koobaad ee Somaliland isla markaana ururkii SLM ee talada dalka qabtay aanay la iman wax barnaamij siyaasadeed ah oo ay dalka ku hogaaminayaan sidoo kalena xukuumadihii kala dambeeyay ee ka dhashay xisbiga kulmiye ay iyaguna gabi ahaanba ka talaabsadeen ku dhaqankii shuruucda iyo dastuurka dalka labadaba sida uu hadalka u dhigay. wax badan bay naga qaldan maanta aan u sii liidana maanta idoo buuba khalisana Soomaaliya ma ka warwarsan toogo ma sii jiri kartaa ayaa maanta taagan Soomaaliya absolutely su'aasha jirta waxa weeye can we survive Somaliland for the 6 maslixda bilood soo socota ma jiri kartaa ba maanta jirta taasee wax u socda waxa uu sheegay 180 maanta haatuma iyo maakhir koos iyo awdal stage iyo yahabkan anaguna waa sii socona absolutely. gudoomiyaha oo habeennimadii Khamiista 20 February hadalka jeediyay madal lagu soo bandhigay buugga uu qoray hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ee uu ugu magac daray hodanka baahan iyo himiladayda ayaa sidoo kalena sheegay in laga hoos qaadi waayay loona dhagaraaricin waayay heshiiskii 22 qodob ka koobnaa ee ay wada galeen Somaliland iyo Khaatumo oo uu ku tilmaamay mid dhammaantood dan u ahaa Somaliland sidoo kalena hadii Somaliland ay hayn kari weyday Professor Cali Khaliif Galayd aanay marnaba suurtagal ahayn inay hayso bulshada gobolada Sool iyo Awdal waxaana wasiirka arrimaha gudaha Somaliland iyo siyaasi Maxamuud Xaashi ugu baaqay inay la qabtaan madaxweynaha si xaaladan adag dalka looga saaro. Cali waa runtiisa 22 qodob baan qoray 22 wax nareey Somaliland oo 5 wasiirayeen 22 qodob waxay noo wada dana على ودنا قارمة ولا نجيه سقادوا شاركوا عن سؤال النجارة تامع قال عليه وحين كون بروفيسور غني هرجسوا جوابي مكتي سوي دويدي دون نبي مكتي سؤال كذا ساسا ما أقول لي مكتابة ما كان هذين على هين كرويني ودول بهذا من هين كريم هذا النبي يحمل ويني هذا النبي يحمل ويني ما قدروا يسووا حمليه ما عملنا إنك ما يسقور نسيها بلا لا أرجتها لا يا زوج تكفى ما كان وحوي يا والله كونفشن كنت تروح علينا ورميلو بربتان بيت جدوا في دلك بدبالينه حسي هو بربراو كل مية ما أنت ما بتشريه دلك إذا خطرت وتشريه dalkana idinka maanta ninkan Muuse saaray kursiga yani kala indinka nala qabto haduu jaqabu waa ugu dambeyn gudoomiyaha wicida Somaliland waxa uu golaha guurtida Somaliland ku eedeeyay inay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee dalka ka taagan iyo waxa uu ugu yeeray shaambad jabisay dastuurka Somaliland nuuranalka codka bariga Afrika.